Allah u naxariistay ciidankii Saddam Hussein waxay kaalinta afraad ka soo galeen ciidanka ugu xoogga badan caalamka kuwaasoo si aad ah ay uga walwali jireen reer galbeedka iyo Mareykanka balse intaan u gudagalin faahfaahinta sheekadan haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub si aad u heshid macluumaadyadeena ugu dambeeyay subscribe saar la sii wadaag asxaabtaada like saar muuqaalkan mahadsanidin waqti ka mid ah waqtiyada ciidamada Ciraaq waxay ahaayeen kuwa ay ku faanaan dalalka Carabta waxaana lala barbar dhigi jiray ciidamada dawladaha waaweyn ee dunida sidoo kale waxay ahaayeen ciidamada u babacdhigi jiray ama u babacdhigi karay dalalka awoodda isbiday ee reer galbeedka sidoo kale ciidamada Ciraaq waxay mar walba ahaayeen kuwa walwal joogto ah iyo handadaad ku hayay Israa'iil markii uu xukunka soo gaaray Allah u naxariistay Saddam Hussein madaxweynaha uu ka noqday Ciraaq sanadkii 1979 dhanka kalena uu ka curtay dalka ay dariska yihiin ee Iran oo hogaaminayay Khomeini waxa bilowday isku dhaca labada dal kadib markii ay Iran qabsatay deegaano ku yaal xuduudda ay Ciraaq la leedahay waxa xilligaas si aad ah isu soo tarayay fargelinta ay Iran ku hayso gudaha Ciraaq taasoo sababtay in Ciraaq dhankeeda ay laasho heshiiskii labada dal ku dhaxmaray Algeria sanadkii 1975 wixii markaas ka dambeeyay waxa bilowday jawaabta Ciraaq waxaana uu Saddam ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah kacaanka Iran dagaalkaas waxa loogu magac daray dagaalkii Iran iyo Ciraaq ama dagaalkii koowaad ee Khaliijka dagaalka u dhaxeeyay Iran iyo Ciraaq oo dhiig badan uu ku daatay ayaa socday muddo ku dhow 8 sano wuxuu bilowday sanadkii 1980 wuxuuna soo dhamaaday 1988 waxa dagaalkaas loo aqoonsaday mid kamid ah dagaaladii ugu dheeraa dunida ee dhaca qarnigii 20aad waxaana ku dhintay labada dhinac dad lagu qiyaasay 1 milyan oo ruux sidoo kale khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay waxa lagu sheegay 1.19 trilyan dollar 8 sano ee uu socday dagaalka labada wadan ciidamada Ciraaq waxay gaareen guulo waaweyn oo ay taariikhda xustay sidoo kale waxa la sheegay in xilligaas tirada ciidamada Ciraaq ay gaareen 1 milyan oo ciidan wuxuuna ka koobnaa 50 firqo gaar ahaan ciidamada dhulka waxay xilligaas sida ku noqdeen ciidamada afraad ee ugu xoogan caalamka sanadkii 1989 ay ahayd markii ay ciidamada Ciraaq noqdeen ciidanka afraad ee ugu xoogan ciidamada caalamka waxayna kaalintaas ilaashadeen ilaa sanadkii 1991 kaalinta koowaad waxa xilligaas ku jiray midowgii Soviyeeti kaalinta labaad Mareykanka kaalinta saddexaad Ingiriiska halka kaalinta afraadna ciidamada Ciraaq ay xirteen shanaad waxa soo galay xilligaas wadanka Faransiiska ciidamada dhulka Ciraaq ciidamada bariga waxay ahaayeen ciidamada ugu muhiimsan Ciraaq waxa la aasaasay sanadkii 1921 waxayna heerkoodii ugu sareeyay gaareen intii uu socday dagaalka ay la galeen Iran iyo duulaankii Kuwait ciidamada bariga Ciraaq waxay haysteen xilligaas 2600 gawaarida gaashaaman ee dagaalka oo ay ku jiraan taangiyo sidoo kale waxay haysteen 1900 oo ah noocyada kala duwan ee madaafiicda markii uu soo dhamaaday dagaalkii ay la galeen Iran Ciraaq waxay noqotay suuqa ugu weyn hubka iibsada iyagoo ka soo iibsan jiray midowgii Soviyeeti Mareykanka Faransiiska Jarmalka iyo Shiinaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ciidamadan waxay ahaayeen kuwa ugu fiican dhanka tababarka iyo diyaarinta ciidamada Ciraaq waxay ahaayeen ciidamada uu ku tashto Saddam Hussein sidoo kale waxay ku qalabaysnaayeen hubka ugu casrisan bilowgii ciidamadan waxay ahaayeen ciidamo khaas u ah ilaalinta madaxtooyada iyo Saddam Hussein laakiin markii uu soo idlaaday dagaalkii Iran waxay ka mid noqdeen ciidamada Ciraaq gaar ahaan waxa la diiwaan galiyay sanadkii 1991 ciidamada cirka koritaanka ama horumarinta ciidamada cirka waxay ku xiran tahay hadba xiriirka uu dalka la leeyahay caalamka iyo isbedelada siyaasadda sanadkii 1958 markii la ariyay nidaamkii boqortooyada ee Ciraaq ka talin jiray waxay dawladda Ciraaq ay xilligaas talada la wareegtay bilowday inay xiriiro diblomaasiyadeed la samayso midowgii Soviyeeti markii uu Saddam qabsaday awoodda Ciraaq sanadkii 1979 waxa si aad ah loo horumariyay ciidamada cirka Ciraaq waliba si degdeg ah Saddam wuxuu xilligaas diyaarado dagaal oo fara badan ka soo iibsaday dalka Faransiiska waxayna markaas Ciraaq noqotay dal aan hawadeeda loo dhawaan karin kadib dagaalkii Iran Ciraaq gaar ahaan sanadkii 1989 diyaaradaha dagaalka Ciraaq tiradoodu waxay ahaayeen 150 diyaaradood waxaana xilligaas Ciraaq ay noqotay dawladda ugu awoodda badan dhanka ciidamada cirka gaar ahaan bariga dhexe difaaca cirka Ciraaq sidoo kale xilligii Saddam waxay haysatay mid kamid ah hubka ugu casrisan difaaca cirka waxaana laga maamuli jiray caasimadda Baghdad ciidamada badda Ciraaq waxa la aasaasay sanadkii 1937 waxayna Ciraaq lahayd xilligii Saddam 6 markab dagaal oo waaweyn kuwaas oo intooda badan laga soo iibiyay Ruushka waxaana tiradooda lagu sheegay 5,000 oo ciidan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koowaad qisada ciidamada Ciraaq ee aadka looga baqi jiray xilligii Saddam Hussein la soco qaybta labaad dhawaan haddii uu idin cajab galiyay muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina kale mahadsanidin